Hargeysa waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu magaca dheer geeyiga Soomaaliyeed, magaalo ku suntan xadaarad, ilbaxnimo iyo waayo aragnimo. Ay dheer tahay magaalooyin badan oo ku yaala dalka iyo geeska Afrikaba. Magaalo lagu xusay taariikhda inay magaceeda ka qaadatay hargaha iyo ka ganacsigooda, marina ay u ahayd ganacsigii isaga kala gooshi jiray xeebaha dalka ilaa Harar. Dadkii ugu horeeyay ee degana ay ahaayeen wadaad iyo xertiis, magaalo dhadhamisay xanuunka dagaalada sokeeye iyo aafada xasuuqa. Muuqaalkeenna maanta ayaynu ku dhugan doonaa taariikhda hoyga fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed ee Hargeysa. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Waberi Media. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. magaalada Hargeysa ma ahan magaalo fac weyn marka la barbar dhigo magaalooyinka kale sida Berbera iyo Saylac oo leh taariikh aad u fog. inkasta oo raadad taariikheed oo aad u fog laga helay deegaanka Laasgeel ee ku yaala bannaanka Hargeysa. raadadkan oo ahaa qoraallo dhagax lagu qoray oo laga helay godad ku dhex yaala taagga dhagaxa ah ee Laasgeel ayaa la sheegay inay leeyihiin sooyaal gaari kara ilaa 9,000 oo sano ka hor taariikhda miilaadiga, taasi oo la micno ah inay xadaarado hore halkan ka jiri jireen waqtiyo aad u fog, laakiin aan diiwaan fiican laga hayn. sida ku cad taariikhda casriga ah ee Hargeysa, waxaa la sheegaa in la yagleelay waqti ku aadan dhammaadka qarnigii 19aad, waxayna ahayd dhul hawd ah oo ku yaala dooxooyin iyo dhul taag ah oo marin u ah dadka u kala safraya xeebaha gacanka cadmeed iyo deegaanada ku hareeraysan Harar. taariikhda casriga ah ayaa qorta in dadkii ugu horeeyay ee si rasmi ah deegaan uga dhigta Hargeysa ay ahaayeen Sheekh Madar iyo xertiisii. Sheekha ayaa ka soo guuray magaalada qadiimiga ah ee Harar, waxayna isaga iyo xertiisu markii hore degeen hareeraha dooxa weyn ee Hargeysa oo waqtigaasi ahayd dhul aad u dhir badan oo uu hawd weyn ku hareeraysan yahay. halkaasi ayay muddo joogeen, kadibna waxay u gureen halka maanta loo yaqaano Jameeca Weyn, halkaasi oo ah halka ay sida rasmiga ah uga bilaabatay deegaamaynta magaalada Hargeysa, iyaga oo halkaasi ka dhisay masaajid ay xerta sheekhu wax ku bartaan. guryihii ugu horeeyay ee magaalada laga dhisana waxay ahaayeen cariishyadii ay dhisteen xerta Sheekh Madar. xukunkii wakiilka uga ahaa dowladda Cismaaniyiinta maamulka xeebaha badda cas ee xarumaha ku lahaa Berbera iyo Saylac ayaa xerta sheekha u dhisay ciidan deegaanka ka difaaca duulaanada kaga imaan kara qabaa'ilka ku hareeraysan oo isku dagaali jiray ceel ku yaala bannaanka magaalada oo xoolaha laga waraabin jiray, iyo sidoo kale inay difaac u noqdaan safarada u kala gooshaya xeebta iyo dhulka Harar xiga oo Hargeysa ay jid dhexe oo la sii maro u ahayd. muddo kadib masaajidkii xerta ayaa lagu sameeyey ballaarin, waxaana laga dhigay dhisme dhagax ah, kaasi oo noqday dhismihii ugu horeeyay ee dhagax ah ee laga dhiso magaalada Hargeysa. muddo kadib waxaa muuqatay in masaajidkii ooda ahaa uu dadkii qaadi waayo, loona baahday in la ballaariyo, waxaana laga maarmaan noqotay in darkad weyn laga sameeyo goobta masaajidku ku yaalay oo masaajidka imika la yiraahdo Jameeco Weyn. wixii waqtigaasi ka dambeeyay, dad badan oo miyiga iyo deegaanada kale ka yimid ayaa soo degay Hargeysa, waxaana bilowday ganacsi iyo wax isdhaafsi dhex maray bulshadii wada degtay goobtan cusub. maadaama dadku waqtigaasi u badnaa reer miyi, waxaa caadi ahayd inay hub wada sitaan, dagaalada qabaa'ilkuna ay si joogto ah uga dhacaan goob kasta oo la isugu yimaado. sidoo kale waxaa dhulka hawdka ah ku badnaa geelay dhac u geysan jirtay safarada u kala gooshaya Berbera iyo Harar, kuwaasi oo marinayu u ahayd Hargeysa. Sheekh Madar ayaa heshiis dhex dhigay qabiiladii soo degay magaalada iyo kuwii kale ee ka fogaa balse u soo waraab doonan jiray ceelka magaalada u dhow. dadaalkan ayaa ka dhigay in Hargeysa ay noqoto goob ammaan ah marka loo fiiriyo deegaanada hawdka ah ee ku dhowaa oo ay qabaa'ilku si joogto ah ugu diriri jireen dhulka daaqsinka ah. Meecharis Weyn oo ahaa sarkaal ciidan iyo sahmiye Ingiriis ah oo Hargeysa yimid sanadkii 1885 ayaa Hargeysa ku tilmaamay inay tahay tuulo ay ku yaalaan 400 oo guryo yaryar ah, bannaankeedana ay ku yaalaan beero haruur ah. dadka magaaladana ay u badan yihiin xerta Sheekh Madar oo ah dad u labis eg kuwa dega Harar, isagoo ula jeeday duubabka xariya sheekha oo u ekaa dharkii reer Harar oo markii horena uu sheekhu ka yimid. inkasta oo aysan jirin qoraal taariikheed oo si sax ah looga diiwaan geliyay halka uu ka yimid magaca Hargeysa,
haddana taariikhyahanada ayaa dhowr qaab u tabiya halka uu asal ahaan ka yimid magacan. fikradda koowaad ayaa tilmaamaysa in magacu uu ka yimid erey carabi ah oo noqonaya harar as-sagiir oo la macne ah harartii yarayd, taasi oo lagu sheegay in dadkii ugu horeeyey ee dega Hargeysa ee ahaa xertii Sheekh Madar ay u labisan jireen sida dadka reer Harar, sidoo kalena dadku u soo cilmi doonan jireen magaalada, sidaasina uu ku baxay magaca harartii yarayd. kadibna isbeddelka cilmi afeed ee isticmaalka ereygu uu noqday Hargeysa. waxaa jira aragtiyo kale oo ka agdhow oo odhanaya in magaca Hargeysa uu ka yimid ereyga Harargeys oo loola jeedo dhulkii hararku geynayey, maadaama magaaladu ka abuuratay waddada Berbera ka timaada ee Harar tagta ayaa waddada sidaasi loogu magacdaray. sidoo kale waxaa la sheegaa in Hargeysa ay lahayd suuq lagu iibiyo hargaha xoolaha, magacuna uu ka yimid Hargegeys oo ah magac lagu tilmaamayo halkii la geenayey hargaha si loo iibsado. taariikhyahanada qaar ayaa soo tabiya aragti kale oo dhigaysa in magacu uu ka yimid erey luqadda Oromada ah oo ah Hargeysa oo loola jeedo dhulkii geed dacarka ama tiinka. labadaba waa lagu sheegaa. labadan geed ayaa aad ugu badnaa dhulka hawdka ah ee ku hareeraysan Hargeysa, inkasta oo fasirkan dambe uusan xoog badnayn marka loo fiiriyo tixraacyadiisa. sanadkii 1888 gumaystihii Ingiriiska ayaa heshiis la saxiixday qaybo ka mid ah odayadii madaxda ka ahaa deegaanada waqooyiga. heshiiskan ayaa ahaa in la ogolaado in Ingiriisku soo dego dhulka Soomaaliyeed kana dhisto maxmiyad ilaalisa dekedaha badda cas oo laga xukumayo Cadan oo markaasi saldhig weyn u ahayd Ingiriiska. Ingiriiska ayaa Berbera ka dhigtay halka uu ka xukumayo gobollada waqooyi oo uu u bixiyey British Somaliland. sanadkii 1941 ayuu gumaysigu u bedelay xaruntiisii magaalada Hargeysa oo noqotay saldhigga cusub ee maxmiyadda. sanadkii 1943 Ingiriiska ayaa Hargeysa ka furay raadiyo Hargeysa oo noqday idaacaddii ugu horeysay ee ku hadasha afka Soomaaliga ah. sidoo kale Ingiriiska ayaa dhisay aeroboortka Hargeysa oo uu ku bilaabay laami yar oo diyaaradaha yaryar ay ka duuli karaan, kaasi oo xarun u noqday ciidankii cirka Ingiriiska ee Hargeysa ay xarunta u ahayd. markii xorriyadda la qaatay sanadkii 1960 ee ay midoobeen labadii gobol ee waqooyi iyo koonfur, Hargeysa waxay ka mid ahayd 6 degmo ee ay ka koobnaayeen gobolladii waqooyi ee xorriyadda qaatay 26 Juun 1960. sidoo kale waa halkii ugu horeysay ee laga taagay calanka Soomaaliya kadib markii uu meesha ka baxay gumaysigii Ingiriisku, iyaga oo isbuuc kadib calankii keenay Muqdisho si ay u midoobaan labadii gobol ee xorta noqday ee kala ahaa koonfur iyo waqooyi. dowladdii dhexe ee Soomaaliya ayaa Hargeysa ka fulisay mashaariic horumarineed oo ugu horeeyey ballaarinta iyo casriyeynta garoonkii diyaaradaha Hargeysa oo ka hor waqtigaasi ahaa garoon yar oo aan lahayn dhabaha diyaaradaha oo qaabili kara diyaaradaha waaweyn. sidoo kale kacaanka ayaa Hargeysa ka hirgeliyey madxaf lagu kaydiyo taariikhda Soomaaliyeed. sidoo kale wuxuu horumariyey waxbarashada gobollada waqooyi, gaar ahaan Hargeysa oo ahayd magaalada ugu muhiimsan gobolladaasi. kadib guuldaradii dagaalkii 1977 waxaa dalka soo food saaray dhibaatooyin dhaqaale iyo siyaasadeedba. qaybo badan oo dalka ah waxaa ka bilowday jabhado dowladda ka soo horjeeday. wuxuu dagaal adag ku dhex maray gobollada waqooyi jabhado hubaysan oo ay hormuud u ahayd SNM iyo ciidankii dowladda. Maxamed Siyaad Barre ayaa awood xaddhaaf ah u adeegsaday shacabka waqooyi. diyaaradihii ciidanka cirka Soomaaliyeed ayaana duqiimo aan loo meeldayin ka geystay magaalooyinka iyo tuulooyinka gobolladii waqooyi. shacab aad u badan ayaana halkaasi si arxandarro ah loogu gumaaday. sanadkii 1988 Hargeysa waxaa ka dhacay nasiib darro aad u weyn. waxaa ku dagaalamay jabhaddii SNM ee ka soo horjeeday kacaanka iyo ciidamadii dowladda. jabhaddii SNM ayaa dagaal ku soo gashay Hargeysa. dagaal xoogan ayaana magaalada ka dhexdhacay. xukuumaddii kacaanka ee uu hogaaminayey Maxamed Siyaad Barre ayaa kacdoonka jabhadaha ugu jawaabay duqeymo aan loo kala meeldayin oo lagu garaacay magaalooyin ay ka mid tahay Hargeysa. ciidamada ayaa dagaalo cirka iyo dhulka ahba ku qaaday magaalada. burbur xoogan iyo dhimasho aad u tiro badan ayaana haleeshay shacabkii magaalada deganaa. diyaaradaha magaalada duqeynayay ayaa ka duulayay isla garoonka Hargeysa. xasuuqii ka dhacay magaalooyinka Hargeysa iyo Burco ayaa barmadow iyo wax laga xumaado ku noqotay taariikhda dowladnimada Soomaaliyeed. kadib burburkii dalka, Hargeysa
waxay noqotay caasimadda Somaliland oo ku dhawaaqday in ay Soomaaliya ka go'day tahayna dawlad ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale inkasta oo bilowgii sagaashameeyadii dagaallo sokeeye ka dhaceen Hargeysa haddana wixii ka dambeeyay Hargeysa waxay noqotay magaalo kabasho xooggan ka samaysay dhibaatooyinkii adkaa ee soo maray waxayna tusaale mudan in lagu daydo u noqotay deegaanada kale haddii ay ahaan lahayd xagga nabadda iyo koritaankaba Hargeysa waa magaalo aad u koraysa dhinac walbana u fidaysa dhismayaal qurux badan ayaa dhinac kasta kaaga muuqanaya waxbarashada oo aad u horumaraysa jaamacado macaahid iskuulo iyo adeegyo kale oo bulsho oo uu isbeddel weyn ka muuqdo ayaadna ka dheehan kartaa magaaladan cimilo ahaan Hargeysa waxay leedahay jawi qabow xigeen ah xilliyada jiilaalka ayuu heerka qabowgeedu gaaraa darajo dhexe oo u dhaxaysa 20 ilaa 22 xilliga ay ugu kulushahayna oo bilaha sanadka u dambeeya oo uu heerkulkeedu gaaro wax ku dhow 32 digrii marka aad booqato Hargeysa waxaad arki kartaa dhismaha guryaha oo isku eg kana samaysan dhagax sharaxaad leh dhismayaasha magaalada Hargeysa ayaa caan ku ah farshaxanka iyo qurxinta dhagaxa dabiiciga ah ee laga helo buuraha ku hareeraysan magaalada